assalaamu calaykum soomaalida waa dad dhiig kulul maxaa loola jeedaa arrinkaas nolosheenna maalintii waxaana soo mara dhacdooyin kala duwan taasoo u baahan in loola dhaqmo qaab xigmadaysan waxaan ka hadlaynaa sidoo kale dareenka iyo sitaanka ama liididda iyo faanka beenta ee aanan jirin soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad dhiig kulul waana arrin dhinac markii laga fiiriyo fiican laakiin 99 ugu yaraan boqolkiiba khasaare iyo shallayto laga dhaxlo waan faahfaahin doonnaa waxa laga wada dhiig kulaylka qofka Soomaaliga markuu dalka dibadda uga baxo ayuu dareemaa waxa uu yahay markuu arko ummado kala duwan lana dhaqmo malaayiin qof oo kala dhaqan ah maanta si hoose ayaan isla hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa ceebaheenna si aan daawo ugu raadinno una daaweyno boogaheenna dhiig kulaylku waa carada madax kor u taagidda ma anaad sidaas leedahay waxaa macquula in kelmad yar oo afkaada ka soo baxdo ama is-afgaran waa yar in aad qof Soomaali isku gacan qaadaan haddii labadeena mid uusan xigmad la imaanin waxaa dhacdo in hadal ama gabay yar qabaa'il isu dhammeeyaan ma annaku sidaasna leeyahay iyo ma annakaa ka xun kadibna dhiigga kumannaan qof oo muslima si xaaraana loo daadiyo waxaa macquula dhacdana in kelmadahaas aad qofka Soomaaliga isku dagaasheen haddaad ku dhahdo qof kale oo aan Soomaali ahayn inuuna waxba u arag waxna ka soo qaadin noloshiisana iska wato waxaan ugu badan war ninka iska celi dhiig ma lihid miyaa haddii aan aragno qof deggan oo aanan dhib badnayn waxaan ku tilmaannaa waa mid aanan dhiig lahayn runtii falsafadaas waa in la beddelaa arrimahaas la xiriira dhiig kulaylka iyo dhaqanka iska hor imaadka joogtada ah leh waxaa ka dhalanaya in qofku mar kasta isdifaac ku jiro qofka Soomaaliga markuu qurbaha tago waxa ugu weyn ee maskaxdiisa ku jiro waa isdifaac yaana lagu yasin yayna ku malayn qof madow oo aanan caqli lahayn asagoo isleh tus dadkan in Soomaalidu Afrikaanka kale ka duwan yihiin yayna ku malayn sidii Afrikaanka kale oo kale taasoo noloshiisa ka dhigaysa mid ku socota sakiin jirjirkeed aan u soo laabanno ka hadalka nafteenna Soomaali ahaan waxaan sheegnay in aan nahay ummad dhiig kulul oo xamaasadaysan mar kasta dhaqankeena iyo luuqadeenna waxaa ku yar hadallada macaan iyo socodsiinta nolosha in nolosha la socodsiiyo in aynan hal meel kaaga dhegin waxaa nugu yar adeegsiga kelmadaha raaligelinta iyo mahadcelinta dadadyawa kale waxaad arkaysaa laba qof oo isu dhoolla caddaynayso in kastoo qalbiga ay wax iskugu hayaan ama ayna isjeclayn taas ma ahan nifaaq ama munaafaqnimo ee waa maslaxada qof kasta noloshu iska hor imaad joogta ah iyo gafuurtaag kuma soconayso noloshun adiga ma lihid mana ahan macquul lamaahan inay kugu socoto sidaad adigu rabto noloshuna ma istaagayso qofka Soomaaliga markuu qurbaha tago ama booqasho ku tago waddan kale wuxuu dareemaa in ay nugu yar yihiin kelmadaha macaan iyo mahadcelinta waxaan soo xasuustay muuqaal aan daawaday ugu yaraan 8 sano ka hor oo wiil Soomaaliyeed oo Ingiriiska jooga soo geliya YouTube-ka asagoo leh Soomaalidu waxaan barayaa qaabka ay ula dhaqmi lahaayeen ummadahan galbeedka ay u imaadeen wuxuu ku celcelinayay wiilka in ay bartaan thank you-da iyo biliista fadlan thank you-da badi biliistana ku dadaala ayaan si weyn uga xasuustaa hadalkiisii wuxuu og yahay wiilkaas arkayna in hadallada noocaas oo kale ah nugu yar yihiin waxaan ugu badan hadallada yaabiska ee murgaxan waryaa magacaa hebel hadalla tuuran waxaan sheeko ku maqlay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddan galbeedka ah joogo ay maqaayad inta badan imaan jireen kadibna haweeneyda meeshaas ka shaqayso ama mid ka mid qofka ka shaqeeyo ayaa la yaabay wuxuuna weydiiyey afkiina ma lahan miyaa kelmadaha mahadsanid iyo fadlan weligeed kamay maqal ayagoo leh thank you ama hadal macaan inay yar ammaaneen shaah oo kale ama waxa loo keenay cunnada indhaha laga fiiriyaa kadibna sheekada ayaa la sii wataa waxaa la yidhi kelmadda wanaagsan waa baasaboorka loogu gudbo qulubta dadka kale xaaskaada hooyada ama walaasha markay cunno kuu samayso ugu yaraan ammaan cunnada kelmaddaas yarta qiimo weyn ayay ugu fadhidaa maanta oo dhan ayay jikada ku jirtaa qiiqu ku baxaya adigana adoo macawis xiran lugahan isu kaasaaran yihiin ayaa lagu keenay cunno diyaarsan hoostana laga soo gelin laakiin waa maxay waxaanaad karisay cusba ma lahan si xishood la'aan arrinkaas wuxuu u baahan yahay in wax laga bedelo dhinaca faanka iyo kibirka waxaan ku jirnaa ummadaha ka cabanaya faanka bugta iyo isla weynida aanan jirin waxaa la sheegay in dawladaha ugu faqiirsan caalamka ay yihiin dawladaha ama shucuubta ugu faanka badan kumannaan heesa wadani ah faanka qabiilka dadka adduunka ugu fiican ayaa nahay dadka adduunka
ugu geesisan ayaan nahay Soomaalidu waa dad xorriyad jecel waxaanay dadka Afrika ugu geesisan hadalla wax asal aanan lahayn oo annaka aan samaysanay caalamkuna uu nagu qoslayaa fulaynimadeena iyo beenteena iyo xaalkaan ku sugannahay waddankii ayaa laga soo tahriibay badda la soo maray ayadoo qof kasta naftiisa gacanta ku wato markii xeebaha Yurub la gaarana waxaan bilaabaynaa kibirkii iyo isla weynidii shalayta adigoo keligaa ah oo geeridu ku taataabanayso ayaad badda soo martay maantana qabiilkii iyo murankii ayaad halkaas geysay xasuuso daqiiqad kasta ood ku jirtay halaaga khatarta dhimashada markaad badda soo martay tawaaduc qofkii tawaaducay ilaahay ayaa qiimo u yeelo dib isu fiiri naftaada waddamadaas iyo ummadahaas kaa diinta duwan ayaa ayagoona kugu af ahayn kugu diin ahayn ku aqoonin waxba kaaga baahnayn gacmo furan kugu soo dhoweeyey haddaba waxaa lagaa rabaa inaad akhlaaq wanaagsan ugu abaalguddo aadna ku noqonin dulsaar oo waxa cayrta loo yaqaan ama lagu magacaabo ku tiirsanaanin canshuurta ay bixiyeen in aad ku qanacdo inaad cunto wax xishood la'aan iyo qiimo la'aan iyo abaalka ay kuu sameeyeen oodan ka soo bixin waxaa xusid mudan ani inaan Yurub iyo waddamadaas aan ku noolayn weligeyna aanan tegin intii qof uu dhihi lahaa waad faaninaysaa yacni adaad tegay meeshaas weligii aan cag ma saarin laakiin waaqicii wax ka jiraan arkaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad u jeclaa in uu u abaalgudo cidda abaalka u gasho waxay doontaa ahaato diintay doontaa haysato qofkii abaal u galaa wuu u abaalgudi jiray rasuulka intii Makka uu joogay sallallahu alayhi wasallam oo mushrikiinta carabta dhibi jirtay isaga iyo saxaabadiisa waxaa jiray nin lagu magacaabo Abul Bakhtari haddaan magac si sax ugu dhawaaqay mana ahayn muslim ninkaas nebiga aad ayuu u garab istaagay haddaba maalintii Badar ninkan wuxuu la socday ciidankii mushrikiintii Quraysh rasuulka saxaabadiisa wuxuu ka dalbaday in ninkaas haddii ay arkaan aysan dirin xitaa dagaalka iyadoo lagu jiro in ay badbaadiyaan sababtoo ah rasuulku ma hilmaamin asxaantii ninkan uu u sameeyay 10 sano ka hor 10 sano ayaa ka soo wareegatay ninkan wuxuu u imaaday inuu rasuulka la dagaalamo oo seef ayuu wataa laakiin rasuulku wuxuu yiri asxaan ayuu ii sameeyay ninkaas haddii la arkayaana la dilin hala badbaadiyo uu abaalgudidda cidda asxaan kuu samaysay waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan iyo dadnimada iyo ilbaxnimada ummad kasta waxay xoogga saartaa inay ka hadasho dhinaca ay ku liidato si loo xoojiyo waa inaan akhlaaqdeena wanaajinaa ummadaha si loola dhaqmanna baranaa carada xanaaqa santaagga war iska celidana aan iska dayna faa'iido ma lahan wax aan ka faa'iidayna ma lahan dhinaca carruurta ama ciyaalka Soomaaliyeed waa sheeko u baahan in kumanaan buug laga qoro ciyaalka nasiib darro waxaa caadi ah in ciyaalkeena markii ay kubad ciyaarayaan 5 daqiiqabo laba isfeeraan isdagaalaan waxaa sii dheer dhagax tuurka gawaarida iyo fawdada 4 bilood ka hor qiyaastii waxaan ku sugnaa Muqdisho anigoo saaran mootada 3 lugood leh ama bajaajta loo yaqaano dhex marayana xaafad ayay ciyaal da ahaan u dhaxay 8 sano ilaa 14 sano dhagax iyo tuuryo naga badiyeen sabab la'aan maxayna tuuriyeen ciyaalkan shartan xagee ka keeneen ma filay in ay jirto meel caalamku arrinkaas ka dhacdo ninkii mootada wadi ayaa igu yiri waa arrin caadi ah meel kasta oo aad ka marto ciyaalku way ku tuuriyeenayaan sidoo kale muddo dhowr sano ka hor waxaan booqday Burco gobolka Togdheer masjid aan salaada ku tukanin ayaa waxa ka istaagay nin cuqaasha xaafadda ka mid ah wuxuuna dadka ka dalbay in ay ciyaalkooda akhlaaqda baraan wuxuu sheegay in masjidka banaankiisa uu fariisto nin maskax ahaan xanuunsan laakiin ciyaalku dhagaxeeyaan ama shiidaan sida halkaas looga yaqaano sabab la'aan ciyaalka u imaanaya way dhagaxaynayaan ama way shiidayaan waxaan ka xasuustaa kelmadihii uu yiri oo aanan iloobi doonin ciyaalka Burco dadka ay sii waalaan Burco iyo Muqdisho kuma eka waa meel kasta dhulka Soomaaliyeed ka mid ah ciyaalku bii'ada ay ku nool yihiin ayay ka keeneen dhagax tuurka qaylada iyo waxaas aanan wanaagsanayn markii masjid salaad lagu jiro qaybta dambe masaajidadeena waxay isu bedelaan meel dagaal kowniya ka socdo waxa qaylo oohin qab ka yeerayso ciyaalka in deganaanta iyo xasiloonida la baro waa arrin muhiim ah dhinaca kale waxaan dhowr mar ku tukaday ama muddo aad u dheer masjid jamaacadiisa ay 90% yihiin muslimiin Maleesiyaan iyo Indoneesiyaan ay degan yihiin meesha qoysaskooda yacni waa meel dalka ka baxsan afka ayaan gacmaha saartay waxaa ku tukaday ciyaalkooda oo aad u badan masjidka kala bar inta dambe oo dhan ciyaalkooda ayaa ku tukada waxaad moodaa tiirar meesha lagu muday aamusnaanta xasiloonida siday u tukanayaan heer xaalku ila gaaray in aan weydiiyo nin ka mid ah ciyaalkaas aabiyaashood oo aan isnaqaano yacni ciyaalkan maxaad ku akhriseen qaab sideed u tarbiyaysaan edebtaan akhlaaqdan wanaagsan waa ciyaal da'yar yar laakiin edebta ay leeyihiin aad la yaabayso masjidka waxa laga yaabaa yacni 100 ama 50 canug inay ku tukanayaan laakiin kelmad aadan ka maqlaynin shanqartooda aadan maqlaynin halka ciyaalkeena 5 canug aanan masjidka looga tukan karin BBC Soomaali ayaan hadda ka hor ka dhageystay in nin loo dilay xabad sigaar ah
dalka gudihiisa waa sabar la'aanta iyo dhacdhaca jaahilnimadeenna hayo. waxaa caadi ah in nin xaaskiisa u furo hadal aanan qiimo lahayn darteed. nin muslim hindi oo Soomaali la dhaqmay ayaa igu yidhi, Soomaalida waa dadka adduunka ugu furiinka badan, waxaana sababa dabcan waxaan aan soo sheegnay ee ah dhaqannadaas aanan wanaagsanayn. marka qof kasta oo annaga naga mid ah waxaa fiican in uu noloshiisa dib u fiiriyo, qaabka uu dhaqmaayo, ciyaalkiisa waxa ay sameeyeen markii ay guriga ka maqan yihiin, inay dadka dhagaxeeyaan, inay masaajidka ku qayliyaan, inay ay yihiin sidii wax lagu tilmaamo ma lahan. waxaa fiican qofka in uu ciyaalkiisa akhlaaqda wanaagsan baro, si hadhow markay weynaadaan ay u noqdaan dad ku soo koray falsafad saxan oo akhlaaq wanaagsan ah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.